si eeyar leno xasuuqayaadeen loomana baahna in la yiraahdo kana kulmiya iyo kana wadan war ciro waxba ina biixma dhaamo ijiinkan markii dhinta la yiri aan isku furanay isuduwa caafimaadku xaalay hadadaad jeediyay waana khalad isuduwa caafimaadka waxaan leeyahay war dambi aanad gelin asoo jiidan dadkana been u sheegin dawladnimaduna mid la isku isirnaco maaha xaafadaadii baa dambigan geysatay xaafada aad ka soo jeedo ee Hargeysa degan ayaa dhibtan geysatay adiguna halkan aad ka anjabaysaa alada Hargeysa nacaybo qabta gobolka Awdal maxaad ka wadaa bal dadka waxaan ka wadaa mas'uuliyiinta ka soo jeeda Hargeysa ee madaxda ay gobolka Awdal way nacaan way cusreedeen way israacaan hadayna israacayn maxaa keenaya in cusbitaalka Burcana la geeyo ijiinadii maxay ahayd oxygen-ta kuwii kaliya ka Hargeysa la geeyo kaboora ma la keeni waayo way atahay ishq maxad igu celcelinaysaa way ree Awdal inay dadtooda ka hadlaan oo ay baahiyaha jirta aanay qarshan Soomaa oo ay ku xisaabtamaan ree Awdal iyaga laftigooda isku aftuuman waa sala kala baxaya cid xagtini gaadi waa in saxaafada ka sheegta inta boqol qof ay dhimirka ka caansanayaan inuu yahay 9 sariirood oo raga iyo 7 sariirood oo dumara waxaad ogeydaan in maalin dhaweeytay laga eriyay shaqaale qaybta dhimirka halkii looga dhisi lahaa cusbitaal weyn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh daawadayaal stuudiyaha warbaahinta Cishqi TV ee magaalada Boorama hadda waxay igula sugan Saleebaan Axmed Geedi Mandela oo ah siyaasi aqoon-yahan qoraa kamida haldoorka gobolka Awdal ugu horeyn waan ku soo dhaweynayaa bal waxaad ka warantaa xaaladda guud ee cisbitaalka magaalada Boorama waad maasantahay wariye Cishqi xaaladda guud ee cisbitaalka magaalada Boorama muddo badan ayay dhibaataysnayd cisbitaalka guud ee magaalada Boorama wuxuu u adeegaa gobol population-kiisu badan yahay magaalo population-keegu badan tahay laakiin cunsuriyad iyo nacayb ayaa ka haysta markasta dawladda dhexe iyo wasaaradda caafimaadka iyo maamulka iyo madaxda Somaliland ee jooga Hargeysa waxa ayaan daraa cisbitaalka dadka inta leeg iyo waliba kililka shanaad dadka xuduudda ku dhow adeega inaanay hal agab ku soo kordhin dawladda Somaliland ilaa in rayaal dabadi waxa xusid mudan in cisbitaalka inta leeg qaybta traumada iyo emergency-ga ay u dhistay hay'adda Amuud Foundation waxa kale oo jira 3 qol oo ay dhiseen inama mutadawiciin oo gobolka Awdal u dhashay oo kaalmo la yiraaho waxa jira iyada oo coronavirus-kii dhacayo in gobolka Awdal dadka dhinta la yiri Burco la geeyay ijiinadii in oxygen-ta Hargeysa la geeyay Boorama la keeni waayay isaga oo wasiirkii caafimaadku ahaa nin maxay ahayd geeda bursiyo Umar Dheer la yiraahdo waxa ayaan daraa in ijiin macmala loo keenay kadib bulshadii ay ka kacday khatarta inta leeg ee la soo darastay ay mashiin iibsatay oo ay diratay mashiinkii markii la keenay ee uu shaqeynayay waxa lagu lahaa deyn waxa ayaan dara ah isla gobolka Awdal dadka soo jeeda inay mashiinka keeneen oo markii deyntii ay dawladdu bixin weyday ee awjiinkiina meel ka xumaaday ee baasweed ku xidheen horta cisbitaalka guud ee magaalada Boorama dhibaato badan ayaa ka haysata cunsuriyad aan lagula dhaqmin cisbitaalada kale waxa ayaan dara ah cisbitaalka dhimirka ee magaalada inta leeg ee 200 qof ay dhimirka ka caansanayaan inuu yahay 9 sariirood oo raga iyo 7 sariirood oo dumara waxaad ogeydaan in maalin dhaweeytay laga eriyay shaqaale qaybta dhimirka halkii looga dhisi lahaa cusbitaal weyn waad ogtihiin Boorama waxay kaalintooda kaga jirtaa dadka dhimirka qaba aad iyo aad ayaan waxunahay
sida cunsuriyadda ah ee nacaybka ah ee sir nacaybka ah ee gobolkaya iyo magaaladeeda loola dhaqmo ee maamulka Hargeysa kula dhaqmo cirana waxba kama duwanayna bixi xalay tolo waxa soo hadlay agaasimaha isbitaalka weyn ee Boorama isuduwa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal waxay sheegeen inaanay oxygen la'aan jirin in isbitaalkana oxygen taala waqti xaadirkani ay ku filan tahay bukaanka jiif horta waxa weeye inamadaasi u shaqeeya wasaaradda caafimaadka anigu ma canaananayo waayo waa shaqaale waa la eriyayaa dhibaatada waxa wada maamulka Hargeysa ayaa neceb oo aan miisaaniyad wasaaradda caafimaadka cusbitaalka ugu darin sida gobolada kale iyo maxay cusbitaalada kale waa nacayb reer Hargeysa u qabaan cusbitaalkan waa nacayb reer Awdal u qabaan agaasimaha cusbitaalku wuxuu sheegay xaqiiqdii meesha jirtay inuu sanadii jiinkaasi fadhiyay buu sheegay in la keeno wuxuu sheegay maxay ahayd oxygen-ta imagine haddaan nacay jirin ma markii hore coronavirus ku jiray ayaa lana loogi lahaa ilaahay baan la bixiyay waxa weeye dhammaan dadka gobolka ka shaqeeya ka soo jeeda ee dawladda u shaqeeya waa dad bilaa damiira waa dadkooga hoosaasiyay loomana baahnaa in la daawado midda kale waxa xaaraana in bulshada mar walba lacag laga guro iyadoo cashuur laga guro jiinkan markii dhinta la yidhi aan isku furannay dadkii gurayay wasiiray ku noqdeen sida buuxan oo kale sida buuxan oo kale marka looma baahna in aqoon-yahaniinta Awdal halka xuquuqda reer Awdal uga dacwii lahaayeen ay maamulka Hargeysa ku biliis gareeyaan annaga dadkayaga ka gurayna lacag dabadeedna ay wasiiro ku noqdaan looma baahna waxa weeye isuduwa caafimaadku xalay hadalaad bujeediyay waana khalad isuduwa caafimaadka waxaan leeyahay waa dambi aanad gelin ha soo jiidan dadkana been u sheegin dawladnimaduna mid la isku isirnaco maaha xaafadaadii baa dambigan geysatay xaafada aad ka soo jeedo ee Hargeysa degan ayaa dhibtan geysatay adiguna halkan aad ka anjabaysaa waa xaraan waxaasi kan muqaan ku leenahay looma baahna waxa weeye cusbitaalka Boorama gobolka Awdal iyo magaalada weyn ee Boorama waxa dhibana u tahay nacayb ay magaalada Hargeysa u qabto Boorama wax kale maaha marka waxaan leeyahay magaalada Hargeysa nacayb oo qabto gobolka Awdal maxaad ka wadaa bal dadka waxaan ka wadaa mas'uuliyiinta ka soo jeeda Hargeysa ee madaxda ay gobolka Awdal way nacaan way cusreedeen way isnacaan haddayna isnacayn maxaa keenaya in cusbitaalka Burcana la geeyo ijiinadii maxay ahayd oxygen-ta kuwii kaliya ka Hargeysa la geeyo ka Boorama la keeni waayo way atahay ishq maxad igu celcelinaysaa way reer Awdal inay dadtooda ka hadlaan oo ay baahiyaha jirta aanay qarshan Soomaa oo ay ku xisaabtamaan reer Awdal iyaga laftigooga isku aftuuman waa sala kala baxaya inanka yare Hargeysa bariiska ka hela ee reer Awdal wuxuu u haystaa in reer Awdal aw mas'uul kaga yahay mishaarka uu qaadanayo dhibaatada oo dhan iyaga wada miyaad aragteen wali wasiir iscasilay miyaad aragteen agaasimo guud oo iscasilay miyaad aragteen isuduwe iscasila meeshan dhibaatada qayb naga ka ah loomana baahna laakiin nacaybka maxay hayday reerkiisa u hayaan adeer hadii nuclear ku dhifan karayaan Boorama ku dhifanahay maxaa ka in coronavirus dhacay umada inta la eg ee adduunkii ka gurmaday in jin loo keeni waayo oo ay jin degdeg u doontaan maxaa keenay haddaan la nacbayn cishqi waa iska cadahay marka waxa weeye dadka reer Awdal waxaan leenahay fadhiga ka kaca meeshan isirnacayb ka soo baxay si eeyar la noo xasuuqayaadeen loomana baahna in la yiraahdo kana kulmiya iyo kana wadan war cirro waxba ina bixima dhaamo sida weeyaan way ugu dambeyntii talada aad soo jeedinaysaa maxay noqonaysaa talada aan soo jeedinaynaa waxa weeye dadku inay saxaafadda tagaan cidda xagtini gaadhi waa inay saxaafadda ka sheegtaa because no way loo dadka gobolka loogu adoonsado dawladnimo beena dawladnimo lagu nacayo dawladnimo lagu takoorayo
dowladnimo qabiilkooga iyo degaankooga lagu nacayo no way looga aamusnaado dadka waxaan leenahay hadla dadka waxaan leenahay dareenkiina muujiya waxa weeyaan sirnacay baa meeshan ka socda genocide baana ka soo socda sida ayaan leeyahay wad maasanta odayaalkaas waxa uu ahaa Saleebaan Axmed Geedi Mandela oo ah qoraa aqoon-yahan siyaasi inta badan falanqeeya hadba xaaladda ka taagan gobolka Awdal iyo wixii ku soo cusboonaada waxaana bulshada gobolka Awdal ugu baaqay inay aayahooga ka tashadaan warbaahinta Cishqi TV magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal